السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي وعشر كيني تضباط وقيبينتا. مركز روحان لي هيد وناكسن الله أعماشي أن سوق بني الصون كصوصنا الله نجا قبله. عرفه وناكسن يد وناكسن بدن لي هاي. أو عشر كيني تضباط وقيبينتا. وحن أيامها سووا النبأ وحوها هل قد لو قيبينيو mar laba gud loo qaybinayo mar saddex gud loo qaybinayo marna hal gud aan soo qaybinay haddana waa isagoo loo qaybinay afar gud tusaalaha nagu horay waxa weeye 4,050 oo loo qaybinayo 5 marka tira hadii hal gud hadii tirada hadii hal gud ay tahay halkaana ay ku jiraan tirooyin marka waxaan waxa soo qabanaa waan hal gud soo qabanaa samahan hal gud soo qabanaa waan marka shan halkan noo taala waxaan dhahaynaa tirada halkan taala tirada dibadda taala oo shan ama la eg tahay mise way ka weyn tahay haddii la eg tahay uu soo qaybsamaa marka hore haddii is leeyihiin hadda 4 iyo 5 tirada weyn tan dibadda weyn saa darteed isma la eka oo tan gudaha ayaa yar saa darteed 4 iyo 5 isma qaybsami karaan laakiin hadduu afartu banaanka ooli lahaa shanta gudaha ku jirta marka caadi weey ha mar walba waxa la rabaa macna mar walba hadaartii inaad isku qaybiso labada tiro ugu horeeya waa in tirada gudaha ku jirta ay weyn tahay laakiin hadda haday yadahayna tirada ku xigta ba soo qabanaysa hadda 4 oo loo qaybiyo 5 macna saamay ka dhigan tahay 4 oo loo qaybiyo 5 taas ka dhigan tahay tirada macnaha weeye 4 ma taqana qalimaad 4 qalin waxa u qaybisaa 5 qof u qaybi deema isma la ekaan 5 qof badan Soomaa taas ka dhigan tahay laakiin hadii ahaan leesan oo kale 5 oo loo qaybiyay 4 hadii ahaan leed macna waa 5 qalin oo loo qaybiyay 4 qof marka de hal qalin ba soo har lahaa Soomaa marka 5 qalin ba badan 4 qof waa yar saas ka dhignaa marka hadda wax noqonaysa laba gud ba soo qaan 40 oo loo qaybiyay 5 ardayga yaqaana tirada hadii ma taqaana markii lagu dhufto 5 ee keenaysa ma taqaana 40 wuu soo saari karaa marka tirada way markii 5 lagu dhufto keenaysa 40 hadduu ardayga xidsan yahay wuxuu dhahayaa 5 lagu dhufto 7 intee way waa 35 5 lagu dhufto 8 intee way 50 waxa way 40 marka tirada halkan saarna waxay noqonaysaa 8 bay noqonaysaa 8 lagu dhufto intee way waa 40 tamaam 40 kii waa qornay hoos ba ka xariiqina hay eber laga jiray waa eber 4 laga jirayna waa eber hadda waa isku dhamaadeen tan hore marka maxaan sameeynaa tirada ku xigta baan soo dejinaa oo ah 5 ba soo dejinaa 5 tiradan 5tan iyo tiradan maxaa marka hore is leeyihiin ha way is leeyihiin hadii is leeyihiin maxaa ku sheegnay tirada hadii is leeyihiin tirada gudaha ku jira hadii ay la eg tahay tabanaanka taala way isku qaybsami karaan macna mar walba maahan in tiradan tira macnaha u dhow in la keeno waa masti macna maahan hadii hadii la dhaho tiradan soo hadda halka hadii noo oo 6 hadii ahaan lahayd 6 baa gudaha ku jira banaankana 5 baa taala macna mar walba maahan markii tira 5 lagu dhufto oo 6 keenaysa ma jiro Soomaan macna mar walba waxa la rabaa tiradan gudaha taala tira keenaysa ama u dhow baa la rabaa marka 5 iyo 5 tirada gudaha ku jira hadii ay la eg tahay tirada banaanka taala marka way isku qaybsamaan waxa dhaynaa marka 5 u qaybi waxa ay sheegtaa ardayow tira markii 5 lagu dhufto 5 keenaysa ardayga xidii xidsan wuxuu dhahayaa waa hal hay 5 hal lagu dhufto intee weeye waa 5 weeye hoos buu soo xariiqaya marka hoos ku soo xariiq maxaa sameeysaa calaamada ka jarta muujinta 5 laga jantee weeye waa eber marka maxaa ku haray in 40 kana ka shaqeynay 5 tan ka shaqeynay maxaa noo soo haray eber baa noo soo haray ma tira waxa jira markii 5 lagu dhufto eber keenaysa may laakiin waxa saarana eber baa keenaysa soo eber hadii 5 lagu dhufto eber buu keenaysa Soomaan eber baa u saarana hadana 5 eber lagu dhufto intee weeye waa eber laga jano eber marka daarabta inaad hubisid jawaabta soo saartay masaxa masakharad ba على 810 oo lagu dhuftay 5 ba dhahaysa hay 5 eber ku dhufo waa eber 5 hal lagu dhuftayna waa 5 8 lagu dhuftayna waa 40 waxa ku soo baxay 4,050 buu soo baxay tusaalna waxa weeye 1,442 loo qayb 7 7 waxa ardayo waxaan ku weydiinayaa hal ba halkan nagu horeyso maahan in banaanka hal gudba noo yaala saa darteed waxa dhahaynaa ma taqaanaa hal iyo 7 yaa weyn tirada gudaha ku jira
waxaan soo sheegnay ama casharkeena aan ku sheegnay tirada gudaha ku jidha haddii ay ka weyn tahay tirada banaanka taala ama ay la eg tahay u qaybsantaa laakiin hadeer tirada gudaha ku jidha hal ah ma u qaybsami karaa 7 maay isa darteed laba tiro isku qabanna 14 ma dhahayna xadeena 14 loo qayb 7 intee weeye ardayga xigta muxuu dhahayaa 7 loo qaybiyo hal waa intee weeye waa 7 laba loo qaybiyana waa 14 laba u saaraya marka muxuu noqonayaa 7 laba lagu dhuftay waa 14 kala jar marka 4 laga jaray waa eber hal laga jarayna waa eber saas ku soo baxaya maxaa soo dejinaa tirada ku xigta oo ah 4 laakiin waxa ogna 4 inaysan u qaybsamin 7 sababtoo 4 baa yar saddex eber waa u saarayna maxaa la soo deginaa tirada ku xigta 42 maxay noqonaysaa 42 isku noqonaysaa tirada ku xigta 2 soo dejinay 42 isku noqoto arday waxay sheegtaa tiro marka 7 lagu dhufto 42 keenaysa arday wuxuu dhahayaa 7 lagu dhuftay 6 ma waxay keenaysaa 42 keenaysaa buli 6 baan saarnay 7 lagu dhuftay inta weeye 42 ayay keenta kala jar marka 2 laga jaray waa eber 4 laga jarayna waa eber weeye marka wax soo haray ma jiro hadaa rabto inaa hubisina 206 baa xaq u dhufanaysaa 7 muxuu noqonayaa 7 lagu dhintay weeye 42 labadii qoro maxaa wataa 4 baa wataa 7 eber ku dhufo waa 7dii 4tii qoro marka awootay 7 lagu dhuftayna waa 14 inta waxa ku soo baxay 1442 ku soo baxay haga waxaa noo taala 2440 loo qaybiyay 8 marka haddii banaanka hal god uu yaallo gudahana hal god soo qabanaa laakiin waxaan soo sheegnay haddii tirada gudaha taala haddii mataqaana ka weyn tahay tirada dibadda taala ama ay la eg tahay baa uu u qaybsantaa marka hadda 2 iyo 2 waxaan ognahay inaysan macaan leekeen isa ka weyneen laakiin way dhaasmaan 2 yar 8 iyo 2 yar 2 yar sadarteed 2 tiraan ka dhignaa marka 24 loo qayb 8 baa dhahaynaa tiro waxay sheegtaa markii 8 lagu dhufto halkan kan la keeno 8 lagu dhufto tiro maqan oo keenis 24 sheeg arday wuxuu dhahay 8 hal lagu dhuftay 8 8 laba lagu dhuftay waxa weeye 16 8 lagu dhuftay 3 saar maxay ka tahay 24 ayay kala jar 4 laga jaray waa eber 2 laga jarayna waa eber maxaa la soo deganaa tirada ku xigta oo 4 ah laakiin wali waxa yar tirada 4 baa yar oo gudaha taala sadarteed eber baan dalacaynaa eber baa soo dejinaa tirada ku xigta ah eber macnaha marka eberka dalacaysid tirada ku xigta tiradan hadda banaanka soo dejisay baa soo dejinayso ah eberta ay waxa arday ii sheegtaa tiro marka 8 lagu dhufto keenis 40 ardayga haduu yaqaan wuxuu dhahayaa waa 5 wati hadda oo kale dhahaynay tan oo kale tiro marka 5 lagu dhufto keenis 40 waa 8 sameeyeen halkan waxa weeye 8 tiro lagu dhufto keenis mataqaana 40 waa 5 8 lagu dhufto intee weeye waa 40 ay eber laga jaray waa eber 4 laga jarana waa eber hadaa rabto hubisina inaa hubisina 305 lagu dhuftay 8 baa dhahaysaa tabtaas ku xisaabinaysaa halka waxaan oo tala 2706 loo qaybiyay 9 tiradan hal god banaanka yaala saddex hal god soo qaadana laakiin waxa jira in mataqaana labadu ay ka yar dhahay 9 sadarteed laba tiro isku qabanaa waxaan dhahay 27 loo qaybiyay 9 marka arday waxay sheegtaa tiro markii 9 lagu dhufto 32 keenaysa ardaygu wuxuu dhahay tiradaas waxay noqonaysaa 3 lagu 9 lagu dhuftay hal waa 9 9 laba lagu dhuftay 8 9 lagu dhuftay 27 sadarteed 3 ayuu noqonayaa 3 lagu dhuftay 27 haye 7 laga jaray waa eber 2 laga jarayna waa eber noqonaysaa saa markaa maraysid maxaa soo dejinaysaa tirada ku xigto ah 3 baa soo dejinaysaa haye 3 ma u qaybsantaa 9 macnaha waxay ka dhigan tahay 9 maxaa nanac wax kale 3 ka koreys markaa 3 macnaha 3 nanac 9 ciyaal ma u qaybsamaa uma qaybsamo in la jabiyo noqonaysa markaa laakiin uma qaybsami karo saa darteed waxa dhaysaa eber dalac ba dhaysaa maxay soo dejin tirada ku xigta maxay noqotay 36 ba noqotay tirada 9 lagu dhuftay 36 keenaysa arday ii sheeg arday haduu garanayo waxay noqonaysaa 4 Soomahan 9 lagu dhuftay intee weeye waa 36 6 laga jaray intee weeye waa eber 3 laga jarana eber ba noqonaysaa saas ba arday ku saari karaa insha Allah taala 10 kale ku sixiyana wuxuu noqonayaa iyadoo hal god oo 5 god loo qaybinayo sidaas baan ku soo wada doonaa insha Allah taala wixii ka dambeeya 5 godna wuxuu isu gudbi doonaa isagoo mataqaan 2 god oo loo qaybinayo 2 god 2 god oo loo qaybinayo 3 god macnaha saas waxa uu sii yareynaa in ardaygu mataqaan si fiican u fahmo insha Allah taala saas baan rajeynaa inaan u sii wadno
waxaan leeyahay mar labaad ciid wanaagsan baan leeyahay ciid wanaagsan